boqolaal ka mid ah muslimiinta ku dhaqan caasimadda waddankan Zambia ee Lusaka ayaa saaka salaadii ciida ku tukaday masaajidka Umma oo ah markas weyn oo ay Soomaalidu leedahay dhismihiisuna socday sanadihii la soo dhaafay kana kooban qaybo fara badan oo lagu baran doono culumta kala duwan kaasi oo maanta si rasmi ah loogu furay salaadii ciida intaasi kadib waxay jaaliyada Soomaaliyeed si gaar ah ugu qaateen damaashaadkii ciida goob weyn oo loo dalxiis tago kuna taala duleedka koonfureed ee magaalada caasimadda ee Lusaka jaaliyada ayaa ku soo bandhigay goobtaasi ciyaaraha kala duwan ee Soomaalidu caanka ku tahay waxaana looga gol lahaa in lagu baro jiilka cusub ee dhalinyarada qurbaha ku kortay dhaqankooda wanaagsan waxaana goobta ka hadlay mas'uuliyiin uu kamid yahay safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddankan Zambia Ambassador Maxamed Xasan Dawara culimada diin uu kamid yahay Sheekh Maxamed Macallin oo booqasho ku jooga waddankan Zambia kana mid ah culimada Soomaaliya sida weyn looga yaqaan ahna ku xigeenka jaamacadda Bariga Afrika iyo hormuudka kuliyadda shariicada ee isla jaamacadda Bariga Afrika sidoo kale waxa goobta ka hadlay mas'uuliyiinta jaaliyada iyo waliba ganacsatada jaaliyada Soomaaliyeed dhalinyarada mid baan leeyahay dadka dhalinyarada shaydaan baa la jooga ummadoo dhan la jooga laakiin si gaar ah ayuu iyaga wax badan u tusiyaa naf baa la jooga dhalinyaranimo iyo shabaabnimo la jooga wadan qurba ayaa la jooga waxyaabaha mashaakilka ah oo fusliga oo balada oo jiraan waa badan yihiin naftiina weerar bay idinku tahay shaydaanku weerar buu idinku yahay gaashaan waxaa ka dhigataan inaad cibaadada badisaan maraakista badisaan maalin aad iyo aad u mudan oo aynu goosanayno bil barakaysan oo aynu soonnay oo aynu ognay cibaado sidaa maanta aynu u wada ciidayno hadday tahay odayaal hadday tahay culimo hadday tahay dhalinyaro hadday tahay haween waxa weeye waa astaan khayr qabta waa inaynu sidaa isugu xidhnaanaa oo isku duubnaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay ciid wanaagsan عيد وناكسن كل عام وانتم بخير إلهي سبحانه وتعالى هنغا أكبر عيديني يو محرب ويدينا سبحانه وتعالى إنه نغديه الفاتحين في رمضان على سعبتنا وحاوي على سوته نديو عيد وناكسن كل عام وانتم بخير وانتم أمان الآدو وإنه غالية لما نمد الصوماليات من سلامية نوحن كاليد الصوماليات كنا لدلك زامبيا ورجينيا إنه فرحتكم إيدان سعيد مصداهر يونيفرسال تي في لوساكا